kama maarmayo markii aan arkana meelun bay goodeen. Assalaamu calaykum, waa anigoo Yuman kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaad ku maqli doontaa waxyaabaha isboortiska ugu waaweyn. rasmi Real Madrid oo la wareegtay saxiixii ugu horeeyay suuqa Janaayo 2020. dhanka kale Ousmane Dembele iyo Barcelona dagaalkii u dhaxeeyay oo sii xoogeystay 6 kooxood oo Yurub oo isku dagaalaya ay 3 tahay kooxaha Premier League. waa kuwii kooxahaas iyo qof u dhow ciyaaryahan Neymar Jr oo sheegay inuu Neymar sababta uu cararayo kooxda PSG uuna jecel yahay kooxda kubadda cagta Barcelona. maxaa ka taqaanaa ciyaaryahankii xalay guusha gaarsiiyay kooxda kubadda cagta Liverpool iyo waxyaabaha kale aad ku maqli doontaan. waxaa si rasmi ah loo shaaciyay kooxda kubadda cagta Real Madrid inay la wareegtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Renan Jesus oo xulka qaranka Brazil iyo kooxda kubadda cagta Flamengo u ciyaaraya heshiis dhan 30 milyan. dadka qaar ayaa ku tilmaamay xidiga Renan Jesus inuu yahay mustaqbalka wadanka Brazil iyo kooxda kubadda cagta Flamengo, balse laakiin taa ma dhicin sababtoo ah Real Madrid ayaa taa burburisay oo la wareegtay saxiixa ciyaaryahanka caanka Renan Jesus ee xulka wadanka Brazil iyo kooxda Flamengo. qiimo dhimis ay sameysay kooxda kubadda cagta Flamengo ee wadanka Brazil ayaa waxaa ka faa'iideystay kooxda kubadda cagta Real Madrid. qiimihii hore ciyaaryahanka ayaa ahaa 70,000 oo euro, balse hadda qiimo dhimis ay sameysay ayaa ka dhigtay 30,000 oo euro. Real Madrid ayaa ka faa'iideystay laacibka da'yarta ah ee 17 jirka ah ee u dheela kooxda kubadda cagta Flamengo ee wadanka Brazil ciyaaryahan Renan Jesus. Real Madrid ayaa hadda ku dhawaaqi karin heshiiska ciyaaryahan Renan Jesus maxaa yeelay Renan Jesus ayaa ah ciyaaryahan da'diisu tahay 17 jir. haddii ay ku dhawaaqdana ay xiriirka UEFA kala kulmi doonto ganaax suuqa kala iibsiga, balse 14 maalin kadib 19 bisha January 2020 waxaa si rasmi ugu dhawaaqi doontaa kooxda kubadda cagta Real Madrid saxiixa ciyaaryahan Renan Jesus. Geesta kale waxaa xoogeystay dagaalkii kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xidiga lagu magacaabo Ousmane Dembele u dhaxeeyay, balse waxaa heegan galay kooxaha ka dheela Premier League Chelsea, Liverpool iyo Manchester United oo heegan u galay saxiixa xidiga caanka Ousmane Dembele. Ousmane Dembele ayaa shaaciyay inuu doonayo inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Barcelona sababtoo ah Ousmane Dembele ma haysto xilli ciyaareed fiican. intiisa badan xilli ciyaareedkan Ousmane Dembele ayaa ku sheegay dhaawac iyo kaarka roosaha oo ku sheegay kulamo kamid tahay kulankii Sevilla, balse taas waxaa ka dhawaajiyay madaxweyne Jose Mario Bartomeu oo sheegay in ay khasaaro ku ahayd markii Ousmane Dembele soo iibsanayeen. Ousmane Dembele ayaa Barcelona kasoo iibsay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund qiimo gaaraya 117 milyan, balse hadda ay Ousmane Dembele inay iskaga iibisay kooxda kubadda cagta Barcelona qiimo dhan 85 milyan ay ku qarash gareysay qiimaha ciyaaryahanka caanka Ousmane Dembele. dhinaca kale haddaan eegno xidiga caanka ee da'yarta lagu magacaabo Curtis Jones oo xalay guul gaarsiiyay kooxda kubadda cagta Liverpool. Curtis Jones ayaa gool uu kasoo tugtay 20 yards meel goolka u jirtay xalay ka dhaliyay kooxda kubadda cagta Everton, taas oo keentay inay wareegga afraad u gudubto kooxda kubadda cagta Liverpool. Liverpool ayaa sugaysa isku aadka ee maanta koox lagu aadin doono, balse xidiga caanka ee da'yarta 18 jirka Curtis Jones ayaa indhaha caalamka soo jiitay, taas oo ku qasabtay in tababare Jurgen Klopp oo uu xidigaha qaybta labaad ee Liverpool ka dheela uu soo daawado si uu xidiga badan uga soo saaro, xidigahaas oo bedeli kara xidigaha ka dhaawacma sida weeraryahanada Firmino, Mohamed Salah iyo Sadio Mane. xidiga Curtis Jones ayaa da'yartii ugu yaraa ee gool ka dhaliyo FA Cup noqday tan iyo December 2012. xidiga caanka ee Wayne Rooney oo ahaa 17 jir xilli ay dheelayeen kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Everton. dhinaca kale taariikhda uu sameeyay Curtis Jones waxa ay ahayd da'yartii ugu yaraa ee ka dhaliyo derby gool
derbigaas oo u dhexeeya kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Everton. Taasi ayaa war farxad u noqotay kooxda kubadda cagta Liverpool iyo jamaahiirteeda oo dhan. Dhinaca kale, shaqsi aan magaciisa la shaacin ayaa u hadlay wargeyska L'Equipe ee waddanka Faransa ka dhaca. Ninka magaciisa aan la shaacin ayaa sheegay sababta uu xiddiga caanka Neymar Jr uga cararayo kooxda kubadda cagta PSG uuna doonayo kooxda kubadda cagta Barcelona. Xiddiga kubadda cagta PSG ee Neymar Jr ayaa sheegaya inuu marnaba iloobi doonin weerarkii saddex xafleyda ee kooxda kubadda cagta Barcelona uu muddo ka ciyaarayay xiddigaha Neymar Jr, Luis Suarez iyo xiddiga kubadda cagta Lionel Messi oo difaacyada cabsi ku ridi jiray xilli ay mar walba garoonka iskuula soo bilaabdaan. Goolal badan ay ka dhaliyeen qaaradda Yurub. Dadka iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa marnaba iloobi doonin weerarka saddex xafleyda ee ahaayeen Luis Suarez, Neymar iyo Lionel Messi, balse tan iyo bixitaankii Neymar ayaa Barcelona marxalad adag ku sugnayd, balse madaxweyne Jose Mario Bartomeu ayaa doonaya inuu soo celiyo xiddiga kubadda cagta Neymar. Xiddigaas oo u suurtageli weysay suuqii hore inuu kusoo laabto kooxda kubadda cagta Barcelona. Dadaalo badan uu sameeyay, balse maxay tahay sababta uu uga soo cararayo PSG ayay qof walba isweydiinaysaa. Taas waxaa caddeeyay qof u dhow Neymar oo magaciisa aan la shaacin oo wargeyska L'Equipe oo waddanka Faransa dhaca u sheegay. Sababtuna waxay tahay ayuu yiri, kooxda xilli ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta PSG iyo kooxda Manchester United oo Neymarna ka maqnaa xilligaas uu dhaawac ku maqnaa, ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United kasoo saartay Champions League wareegiisa 16-ka. Taas ayuu niyad-jab weyn ka qaaday xiddiga caanka ee Neymar Jr, taas oo sababtay inuu u cararo saddex xafleydiisii hore ee Luis Suarez iyo Lionel Messi iyo xiddiga Neymar Jr. halkaana waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii aan ugu hadlaynay maxaa ka cusub ciyaaraha maanta. kama maarmayo markii